meeshan ku wata inay ku nool yihiin dad Kristaan oo aaminsan diin aan ahayn diinta Muslimka hadda waa ku nool yihiin report-kaas waa hayna maxaa cadeynay waaba Soomaaliya waliba oo Soomaaliya marka hore ku mahadsantahay waan ku faraxsanahay inaan kula kulmo magaalada Nairobi aan joogno ayo ogolaatid inaan fursad ii siisid inaan maanta halkan waraysi iyo sheekaba aan halkan kugu yeesho oo ku faraxsanahay wariye Timcade waa mahadsantahay thank you very much waa ku faraxsanahay inaan kula kulmo markale waxaan rabaa marka hore inaan ku weydiiyo marka hore Sufyaan marka dadku ay arkaan baraha bulshada shakhsiyadiisa sheekooyinkiisa xisaab badan marka hore Sufyaan ina baranaa rabnaa waa kuma Sufyaan waa oday mutacallim jaamici Soomaaliyeed oo muslim ah jecel wadankiisa laakiin ujeedadiisa ugu horeysa ay tahay wadanka Soomaaliya in lagu xukumo alkitaab wa sunna Sufyaan halkuu ku dhashay goormuu dhashay Sufyaan wuxuu ku dhashay Cadaado anoo hal sano jira laga soo waday waxaan imid Jilib waxaan ku jira dadkii qaxootiyalka loo soo qaaday waqtigii abaaraha dawladda Siyaad Barre meel dujumo leeyahay liigay kadibna waxaan imid gobolka Jubbada Dhexe halkaas aan wax ku bartay dugsi hoose dhex uga baxay macallin noqday iyadaan ku soo noqday 91 halkaas aan ka soo tagay markaas ay ugu dambeysay Jilib 91 halkaas aan ka soo tagay markaas ay ugu dambeysay Jilib ilaa iyo halka ku dhalatayba rajay ma kale inaan ku laabatid ma halkan ku dhashay waxaan tagay 2013 14 kadibna waa ka soo baxay Soomaaliya intaan joogaa hadda xorriyadaada ka waran dib u laabashada Soomaaliya marka iyo meesha ku dhalatay Cadaada ku laaban kartaa ha absolutely waa ku laaban karaa ku laaban kartaa cabsi ma jirto cabsi wax leeyahay ma jiro ama santo harba Sufyaan ujeedka marka xisbigiisa uu asaasay iyo waxa uu ka damacsan yahay waa maxay xisbiga tala ku nool waxyaabaha aan waasasnay waxa kamid ahayd in aan dib u soo ceshano taariikhdeena Soomaaliyeed diinteena wadankeena lagu maamulo alkitaab wa sunna taariikhdeena aan dib u soo ceshano inaan Soomaaliya heeriyada gumaysiga ee maskaxda ah inaan Soomaaliya ka xoreeyo oo ka saameysay diintii taariikhdoodii iyo dhaqankii inta dhawaan waxaa jirtay doorasho in dalka dhacday ka hor waxa kamid ahayd shakhsiyaadka doonay inay sharaxaan Soomaaliya tagaan maxaa ka hor istaagay waxaan ku hor istaagay markii aan rabnay inaan codsigii isdiiwaangelinta markii aan sameeyno ayaa waxa codsigii ku jiray in aan diinta islaamka ka baxno oo ah waxa ku yaala qodob oranaya waxa la rabaa inaad ku dhaarato ama aad qirato in aad u hogaamisamayso shuruucda wadanka u taala oo ah dimuqraadiyadda sida 4.5 oo kaleeto dimuqraadiyad oo kaleeto dhammaan dastuurka wadanka u qoran annagana waxaan u soconaa waxay dastuurka inaan bedelno waxaan warnaa inay tahay kufri in lagu dhaqmo waxaan warnaa inay tahay diinka bax in la aqbalaba inaad sharcigaas ka qayb noqonayso sida daraadeed dib aan uga soo laabanay waxaan go'aansanay inaan ololaheena sii wadno shacabka Soomaaliyeed aan ka dhaadhicino ilaa aan gaarno meel awoodda shacabka aan dib ugu soo celino si annaga halkaas aan ku tagno xilka hada dastuurka Soomaaliya marka la eego xitaa doorashada tii koorisi tan soo socotaba xitaa Soomaaliya ma kula tahay inay gaari karto one by halkii qof ba hal cod inuu dalka madaxweynuhu ku doorto kula tahay waxa macquul ah marka inay dhacdo macquul waa laakiin anaga xisbiga tala ku nool hadaan nahay marka horeba aragtideena iyo hadafkeenu waxa uu yahay ma aha oo kaliya in xil qaban hadafkan waxa weeyaan bulshada Soomaaliyeed in aan awoodda ay leeyihiin oo wadankan iyagu leeyihiin dad muslimiin ay yihiin ayagoo muslimiina diintoodii in laga macnaha sharci dejin looga sameeyay in lagu maamuli karin in arinta ku baraarujino dibna ugu soo celino so manihin macnaha dad runtii goolkooda koowaad uu yahay xilna qabto goolkeena koowaad wuxuu yahay in wadankeena Soomaaliya aan ku guuleysano in lagu xukumo alkitaab hada ma ka qayb gali kartid doorashada sababta markaas qodobka sanadkan diiday wali uu yaala hadana uu yaali doonaa maxaa xal marka insha Allah ma oli doono sababta halka aan ku keenayno waxay tahay shacabka Soomaaliyeed markay ku baraarugaan maanta waxaad og tahay nimanka dawladda al-Shabaab marka ay joogaan Soomaaliya dhexdeeda waa ka xishoodan ereyga dimuqraadiyadda waa guulo Allah subhanahu wa ta'ala uu inoogu nicmeeyay hadan xisbiga tal ku nool shacabka Soomaaliyeed waxaan u sharaxnaa dimuqraadiyaddu waxay tahay shacabkii waxa ka dhaadhacday oo maanta fahamsan inay tahay dimuqraadiyaddu diin udub dhaxaadkeedu uu yahay la ilaaha markay ka xishoodan kaliya waxay yiraahdaan nimankan al-Shabaab waxay yiraahdaan markay banaanka u baxaan wariyaasha shishe markay la kulmaan yiraahdaan warkaas magaca al-Shabaab oo taqaan magaca al-Shabaab waxaan naqaanaa dawladdan hadda maanta talinaysa oo macnaha meesha u joogta dawladda Mareykanka al-Shabaab marka micnihiisa waa sida al-Shabaab waa diini waxa weeyaan waxay la tartameen waxay la challenge gareeyeen Ilaahay iyo rasuulkiisa
macnaha markii sharcigii Allah subhanahu wa ta'ala uu keenay mid ka duwan inta keento aad ku indha adeegto Allah subhanahu wa ta'ala quraanka leeyahay man shaaqi Allah wa rasuulahu macnaha waxay la tartameen waxay la challenge gareeyeen ilaahay rasuulkiisa hada shabaabkun waxay dhahaan dawladda ridada idinkan waxa dhahdaan al-shaqaaq idinkii shabaab maxaa farqiga u dhexeeya wal anaga xarakatu shabaab intaan ka naqaano waxay yiraahdeen waxaan rabnaa in la isku xukumo al-kitaab wa sunnah anaguna waxaan rabnaa al-kitaab wa sunnah in la isku xukumo diinta islaamka qof walba Soomaaliya ahaan raba in la isku xukumo al-kitaab wa sunnah intaas waa intaan ka naqaano xarakatu shabaab waxay yiraahdeen waxa kaleeto oo wadada ah in lagu tago halkaas in lagu tago dagaal in lagu tago annaga ma diidi karno jihad fi sabilillah iyo macnaha in ilaahay daraad loo dagaalamo waa shay min diin ma diidi karno anagu laakiin waxaan annaga naga dhaadhacsan in wadada meesha ugu fudud uguna fiican oo maanta lagu tago xilka Soomaaliya ama Soomaaliya in lagu maamulo diinta islaamka inay tahay wadada nabadda aragtida marka ay ahaan iyo xisbigiinaba aragtida shabaabka ka qabtaan maxay tahay shabaab anaga aragtidan ka qabnaa waxay yihiin xisbi hubaysan oo dagaalamaya waka ma Soomaaliya ka waran marka challenge-ga ay dawladdu ku wadaan oo kale in waxyaabaha Muqdisho ka geystaan dilalka qaraxyadu sida iyagu aaminsan yihiin in wado wanaagsan ku socdaan idinku taa qiiqdii waxa dadka la dilo dadka la xabadeeyo caruurta la laayo tusaale qaraxi ugu dambeeyay ilmo yar yar ku jira dhimashadooda hooyo uur la ku jirto idinka xisbiga intaas caadi buu ka yahay annaga ma dooran siyaasaddeena kuma jirta wax la dilo siyaasaddeena in hal qof oo Soomaali dhiigiisa la daadiyo waa ka soo horjeedna taasi waa siyaasadda xisbiga tala ku nool iyo fikirkeen marka la yiraahdo xarakatu shabaab iyo wadada ay qaateen waxa jira waxaan ku xugminaynaa diinta islaamka dhinaceeda ka istaagayna annagoon qaadanaynin dacaayadii Mareykanka way waxa la dagaalamayaa dawlad ma aha maanta waxa la dagaalamayaa xarakatu shabaab waa America iyo dadka ay wadato maxaa kugu qasbaa erayga xarakatu shabaab inay isticmaashid saas iskugu yeeran qofka ayaga iskugu yeeran laakiin dhanka kale dawladda maxay ugu yeertaa hadda macnaha ma waxaad rabtaa dacaayadii dawladda inaan qaato hadda ayaga naftirkooda ridadii dhahan Soomaaliya hadda aanu riddo ma dhihin laftirkayga dawladda ana magac ula baxay erayga xarakatu shabaab waa sida iyagu jecel in loo dhaho laakiin waxa loo isticmaalaa khawaarijta iyo eray noocaas oo kale ah way adiga u isticmaalaysaa erayga xarakatu shabaab because anagu likara Sufyaan xagaas dawladdu kaga dhow yahay maya anagu waxaan diidana xisbiga tala ku nool anagu madi waxaan wax ku xugminaa way dawladda magac kale ugu baxsatay al-shaqaaqa ugu baxsatay oo shabaabku wax iyagu ay rabaan ugu wacaysa dawladda maxay diidana ugu wacday dawladda maantay Soomaaliya nimankan anagu aan ugu yarana al-shaqaaq waa niman loo taliyo ala u baxsaday maya anaga xisbiga tala ku nool maya anaga xisbiga tala ku nool siyaasadeena waxa weeyaan waxaanan haynaa cadayntaan haynaa xisbiga u baxsaday anaga xisbiga tala ku nool okay laakiin dawladdu waxay rabtaa in dawladda Soomaaliya loogu magacaabo sida taa la mid ah shabaabku ay iyagu xarakad u rabaan oo aad ugu wacaysid maxaa diiday dawladdu wax iyagu rabto inay ugu wacday ha loo diidan arintaas dawladda Soomaaliya maanta jirtaahay ama dadku u yaqaan inay dawlad tahay ayagu wadanka uma taliyaan wadanka waxa u taliya Mareykanka u taliya maxaa cadeynaya hubkoodii droneskoodii lacagtoodii ma taakulayn maaha waxay dad Soomaali taakulayn waxa la dhahaa marka cunto iyo dad wax siisid laakiin markaad ku taakulaynaysid koox inay dilaan Soomaali kaleeto taakulayn lama yiraahdo waa kuma kooxda Soomaali kale disho macnaha markii inta la hubayo qof Soomaaliya lagu macnaha gacan siiyo inay qof kale Soomaali dilaan because xarakatu shabaab dad Soomaaliya laakiin ayaga Soomaaliya dilaan dawladda caruur Soomaali waa labada dawladda caruur ma disho hooyooyin ma disho dad aan waxba dambi galin ma disho sax laakiin shabaabku meel dhan oo hotel meel suuq kale qarxiyaan ganacsi waxa dhibaataas geystaan waa kuwa markay cid hadda la taakulay in dadka Soomaaliyeed ay dilaan ma dawladda mise waa shabaab marka aad leedahay dawladdu ma disho ilmo iyo caruur ma disho yes ma disho waxa hadda ugu dambeyn hadda markii ugu dambeysay macnaha 2 week ka hor ciidamada Ugandhaysku madaafiicay waxay ku weerareen meel shabeellada hoos waxa ku dhintay intaas oo ilmaha ku dhintay which means statementiga ah ama hadalka ah in la yiraahdo dawladdu because dawladdu ma jirto weerar ma ahayn kaliya waxyaaba caruurta ku xiyaa waa sida ay u dhigaan ayagu waa sida ayagu ay u dhigaan laakiin xaqiiqadu waxay tahay duqayn wuu jiraa laakiin kaligeedna ma aha macnaha marka anagu xisbiga waxa la rabaa xaqiiqda in laga wada hadlo waxa maanta dilaya dadka Soomaaliyeed waa Mareykanka iyo wuxuu keensaday because ciidamada shisheeye ee maanta wadanka jooga Mareykanku waa xir of course sababta in ay siyaasadooda inaan ka soo horjeedo
sidaan maantay aan u leeyahay ama fikirkaan ka qaba markaan wadankooda joogo sida daraadeed haddii Soomaaliya aad hadda maanta u noqoto madaxweyne shabaabku si ula macaamil lahayd haddaan maanta Soomaaliya madaxweyne u noqdo shabaab wax la yiraahdo ma jirayaan because shabaab waxay ku doodayaan sida ay leeyihiin oo anagu aan ka maqalnay inay wax rabaan alkitaab sunna ay ku xukumaan wadanka haddii marka xisbiga talo ku nool uu ku guuleysto nabad waarto say ku imaanayaan nabad ilaan iyagu naftirkooda halkay u socdaan ayaa adeegtay Soomaa ayagu waxay u socdaan wadanka sida anagu haddii maantay dawladdan xataa maantay hadda nimankan al-shaqaaqo maanta jira hadday go'aan qaataan oo yiraahdaan wadanka waxaan ku xukumaynaa alkitaab sunna oo dimuqraadiyada ay tuuraan waa taageerina anu waxaan taageerinaa wax walba oo diinta islaamka wax ku xukumaan taageerina micnaheedu taas wuxuu yahay haddii xarakatu shabaab nooga hormarto ama nimankan al-shaqaaq la yiraahdo inta isbedelaan ay dastuurka islaamka qaataan waa taageerina qof kasta oo marka diinta islaamka u ololeynayo oo waxba u qarsoonayni haddii lagu guuleysto hadafkii uu lahaa oo wadanka ay ka hirgasho wuxuu ku qasban yahay inuu taageero micnaheedu taas wuxuu yahay haddii xisbiga talo ku nool xukunka uu la wareego waxay u dagaalamayaan xarakatu shabaab siday noo sheegeen ayagu oo ay yiraahdeen waa la gaaraguushi sida daraadeed dagaal dambe inay sii wadaan meesha kuma jirto ma jiraan shakhsiyaad xiriirka hal dhaxay oo ragaas ka waligay ma aanan maqlin lama sheekaysan inna kama naqaan wali in ku soo waceen ma wada hadasho waligay ma la xiriirta adin isku dayo waligay lama xiriir ma aqaan ku qofna ma maqlin ma aqaano qof ayaga kamid waligay lama soo xiriir waxa dib kuugu celinaa aragtida shabaabka meelaha ay weeraraan qaraxyada ay geystaan dhibaatada ay geystaan caruurta ay laayaan aragtidaas idinku xisbigiina markii qarax dhaco weerar dhaco tusaale qaraxii ugu dambeeyay maqaayada galeen hotel ay galeen caruuriga ku dhimatay lama arkin idinku ka hadlaayo oo dhahay waxa dhacay ma ahin wax wanaagsan xitaa waxa ka hadlaya dawladda islaamka heer galbeedka dhammaan waxay ka hadleen dhibka ay geystaan shabaab idinku oo Soomaali ah oo hadana xisbi sheeganaya sidee uga hadlayseen anagu dhammaanba waxyaabaha qaraxyada oo dhaca ama dhimashada ama dadku markuu dhinto ama qaracan ama dhibaato haday Soomaali ku timaado waxyaabaha aan ka hadalno kuma jirto annagu waxaan leenahay qorsheheenu wuxuu yahay sidii shacabka aan u badbaadinayn waayo marka aad ka hadasho meel hebelaa la qarxiyay iyo qof hebelaa dhintay waxaa taa qof ku meeraysanaya laantii geedka meeshaad u baahnayd jiridda geedka inaad ka jirto annagu waxaan go'aansanay xisbiga talo ku nool inaan geedka jiridda ka goyno micnaheedu taas wuxuu yahay inaan ku soo dabaalno Soomaaliya cadaalad waarta nabad waarta in dadku cadaalad u helo in dhibaatada wadanku ka baxdo waan in la isku xukumo alkitaab taas waxa ka horeyso shabaab oo dilay caruur yar waa ka aamusteen taasi waa ka aamusteen micnaheedu waxa la mid tahay aragtida shabaabku idinka aaminsantiin haddaan ku leeyahay ma aaminsan aragtida shabaabka dadku waxay dhahaa Sufyaan dhankaas uu dhow yahay hadda dadku waa dadkii lagu shubo waay dadkaas waa dadkii lagu canqariyo macnaha gaaladu ay ku shubato dhageysta waay dacaayadii dawladda Mareykanka waxay ku xirtay aragtida cidaas inay faafinaysay sida dadku qaar ay sheegaan dawladda Mareykanku ayagu say rabaan laakiin dawladda Mareykanku waxay ii xirtay inaan ahay qof fikirkiisii aan ka tanaasuleynin intaasoo waxbarashada la geeyay waqti dheer ay ugu bixiyeen waxbarashooyin banaanka la ii diray waa maxay ujeedka kaliya waqtigaas lagu galiyay ma dadkan kale la galiyay ujeedka waqtigaas loo galiyay iyagu waxay lahaayeen qorshayga lahayn wuxuu ahaa waxay arkeen inaan ahay qof runtii ayaga aragtidooda marka la yiraahdo qof aad u caqli badan awood leh wax gudbin kara ama wax maamuli kara dadka soo kala marka waxay sameeyaan laba mid ay ku sameeyaan ama waa dilaano intaysan meesha soo gaarin waa dilaan ama waa koriyaan markay koriyaan kadib waxay isku dayaan inay bedelaan markii wax walba ay sameeyeen oo waxbarasho banaanka la siiyay oo Spain la ii diray oo wax walba aan bartay waxa timid waqtigii la bedeli lahaayeen bedelmi waa qasab waxay noqotay marka in la burburiyo marka xabsi la geliyo ka war noloshada xabsiga walaal xabsi waa nolol xabsi Mareykanka waxa la sida filimada Hollywood waxa ka dhaco xabsiyada xataa rag lagu kufsada yeah it is true in xabsiyada dadka lagu kufsado laakiin xabsiyada dadka lagu kufsado xabsiyada ragga lagu kufsado waqtigii hore waay hadda waxa xabsiyada ka buuxa kuwa raba ayaga in la kufsadaan laakiin waqtigaas dib ugu laabanayna waqtiga isaga aan ugu xirnaa niman waxa xabsiga ugu la xirnaa hormon qaato naasalo dabadu intaas joogto ayagu u baahan shakhsiyaadka caadiga nabad ma shakhsiyaadka 5 sano koor Muqdisho iyo 10 sano koor maanta say ahayd Soomaaliya isma laha yes soman 10 sano koor meesha joogtay maanta ma joogto because maanta waxa Muqdisho laga diiwaan galiyay 3238 nin oo qaniisyaal mubta yes anaga xisbiga talo ku nool facts kaanayna waxa kamid ah 3000 iyo ka kor oo qaniisyaal maanta ku nool Muqdisho oo waxa ka hadlayna horumarka ka hadlayna horumar miyaad marka in qaniis wadanka ay ku nool yahay horumar miyaad laakiin waxa ka hadlayna horumarka ka hadlayna horumar miyaad marka in qaniis wadanka ay ku nool yahay horumar miyaad dhanka kale caafimaadka waxbarashada iyo bulshada iyo dhismihii deegaanka dhanba wariye timcade
caafimaad ma aha 3,000 iyo samaay qaniisyaal wadankaaga inay ku nool yihiin caafimaad iyo horumar ma aha in dhilaysigii uu fasaxan yahay qaniisiinta ma ragga kaliya mise dumarkan ku jiraan well the lesbian LGBT marka la isku soo duubo ha wal raggal bisa la sheegay inta reportka hadda aan hayno anagu waxa sameeya waxa laga soo qaadaa waxaad ogtahay Mareykanku sanadkan 60 milyan oo dollar ku bixiyo Soomaaliya in la hormariyo oo uu siiyay waxa la yiraahdo civil society ama loo yaqaan afka Soomaaliga ururada bulshada si loo hormariyo qaniisnimada musiga wax fisqiga oo dhan iyo si loo jaajuuso nimanka xildhibaanada ku jira ee wadadii loo soo xushay ka leexday si loo soo gudbay reportkooda si aysan u soo laaban waxa dhahday tirada igu celi 3,000 iyo dheeraad xildhibaanada ma ku jira ma xildhibaanada ku jira kuma dhig waxaan ku 3,000 iyo dheeraad qaniisyaal ayaa maanta alashan marka qaniis kaliya la dhaho intaas tiradaas inay tahay waxay ka koobnaan karaan dad kala duwan صح of course waa niman laakiin of course waa niman laakiin macnaha inta la yiri gays marka la yiraahdo nin waxa marka tirakoobkaas laga soo qaaday oo laga soo xaday hay'adahaas ururada bulshada ama hay'adaha bulshada la dhaho civil society la yiraahdo ayaa diiwaankooda haya waa kuwa ilaaliyo xifdiya iyaga loogu talagalay inay ilaaliyaan iyaga loogu talagalay lacagta inay ka bixiyaan iyaga loogu talagalay lacag inay siiyaan caafimaadkooda noloshooda waxooda si loogu abuuro wadanka si ay u bataan marka ugu dambeysana dastuurkan hadda qoran ilaa waa ku qoran yahay dastuurkii ku yaalan in xuquuq ay leeyihiin la ilaaliyo dastuurka maanta qoran ay ku taala qodobka sinaanta 15aad ee dastuurka 11aad ee dastuurka faqradiisa 9aad ay ku taala qof kasta oo Soomaaliya diintu rabo iyo bulshada wuxuu ka yahay ama qaniisahu ama waxa ritahu inay u siman yihiin disham kulata inay ku nool yihiin dad Kristaan oo aaminsan diin aan ahayn diinta muslimka hadda waa ku nool yihiin reportkaas waa hayna maxaa cadeynay waaba Soomaaliya kulata inay ku noolaan karaan si nabada ma qad qaniis ku nool yahay Kristaan ku jooga qaniis iyo Kristaan waxa dhow nin Kristaan ka dhow nin Kristaan ka at least wax waaye dabadana dhiiban maayo ilmahana ka hadlay maayo diin kale aan aaminsan ku leeyahay laakiin qaniisku waa ka sii tagay xaggaas ku sii jira qurba joog mise waa dad local ma naqaano exactly macna xaaladooda saxda ah meesha ka yimaadeen wadankay ka yimaadeen qurbahay ka yimaadeen ma naqaano laakiin waxaan ognahay tiradaas waxa laga soo xaday oo laga soo bixiyay reportkaas macnaha warqadaas waxa laga soo bixiyay hay'adaha bulshada ee Muqdisho jooga civil society waxa la yiraahdo oo ayagu shaqadooda ay tahay inay iyagana abuuraan ilaaliyaan barqay baxay absolutely diinta islaamka Allah subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa wuxuu ku yiri exactly taasan ku fulinayno 10 sano ka hor meesha joogto maanta ma joogto because maanta waxa Muqdisho laga diiwaan galiyay 3,238 nin oo qaniisyaal mubtaan anaga xisbiga telecool facts ka anayna waxa kamid ah 3,000 iyo ka kor oo qaniisyaal maanta ku nool Muqdisho anaga waxaan ballan qaadaynaa wadanka Soomaaliya qaniis waxa la yiraahdo inaysan ku noolaanin mubtaan xidka markaan telecool ay qabato qaniis waxa la yiraahdo wadanka Soomaaliya inaysan ku noolin ballan qaadayna mubtaan ballan hadii ku noolaa maxaa dhacay ma ku noolaa karaan ma hadda anagu xilka haynaa anagu xisbiga telecool hadaan xilka qabano qaniis Soomaaliya kuma noolaana xisbigiina ragii dumar koobaya yes inuu qaniis ku jirno mubtaan qof anagu dhahaaya waxa rabnaa in qaniiska ma dhaha qaniisa ay mubtaan ana qaniisa ay ma dhaho xisbigiina anagu hadda xisbiga telecool hadaan nahay qofka xisbiga ku soo galaya laba shay waa muhiim inta jooga xildhibaanada kale wax idinka cilaaqada leediin oo kale xisbigiina aaminsan oo kale xitaa si qarsoodiya ula shaqeeya ma jiraan ma sheegin haday jiraan sheegin laakiin ma sheegin waa maxsabta ma sheegin oo cabsanaysan ma sheegin sabab ma sheeginaad ujeedada sheeg sabab ma sheeginaad ma sheegaysid laakiin waxa ay dhaadid ma sheegaysid sabab waxa jira siyaasad ahaan aan u fiicnayn haddii qof مثلا dawladda saraakiil niman xildhibaano qofkii intana soo waca anaga yiraahdo waa in ka tirsanahay ama anagu nidaama jira xisbiga telecool qayb looga noqdo nidaamkaas ayagu ma samay karaan laakiin waxay dhihi karaan waa in hada shabaabkun waxay dhahaan dawladda ridada idinkan waxa dhaadaan al-shaqaaq idinkii shabaab maxaa farqiyo ni dhaxay wal anaga xarakatu shabaab intaan ka naqaano waxay yiraahdeen waxaan rabnaa in la isku xukumo kitaabka sunna anaguna waxaan rabnaa kitaabka sunna in la isku xukumo diinta islaamka qof walba Soomaaliya ahaan raba in la isku xukumo kitaabka sunna hada shabaabku waxay aaminsan in la isku maamulo kitaabka iyagoo laakiin aragti kale iyo siyaasad kale ka dhaxwato culimada ma taageersana qaarkood idinku mid taala mid oo kale waxa leedahay hadii anagu dadkeenu ay taageersaneen
iyagana waa gaalo annaga ma taageerada annaga xaqiiqda dadka ay kala yihiin annaga waxaan ognahay inkastoo aan hadda wararkooda sheegin inay jiraan xildhibaano gaala Christiana cadaynta wax naga dhiman yihiin banaanka laakiin waan soo dhiganaa maalintii cadayntu noo dhammaystirto laakiin ma ogin xildhibaan qaniisa weli noloma sheegin waa ka erayga xarakatu shabaab waa sida iyagu jecel in loo dhaxo laakiin waxa loo isticmaalaa khawaarijta iyo eray noocaas oo kale ah way adigu isticmaalaysaa erayga xarakatu shabaab because annagu likara Sufyaan xagaas dawladdu kaga dhow yahay maya qasab waxay noqotay marka in la burburiyo marka xabsi la geliyo ka war noloshada xabsiga nolol xabsi waa nolol xabsi Mareykanka waxa la sida filimada Hollywood waxa ka dhaco xabsiyada xataa rag lagu kufsado yeah, it's true in xabsiyada dadka lagu kufsado waxyaaba filimada Hollywood ee dadka lagu kufsado laakiin xabsiyada dadka lagu kufsado xabsiyada rag lagu kufsado waqtigii hore waay hadda waxa xabsiyada ka buuxa kuwa raba ayaga in la kufsadaan laakiin waqtigaas dib ugu laabanayna waqtiga isaga aan ugu xirnaa niman waxa xabsiga ugu la xirnaa hormoon qaato naasalo dabad intaas joogto ayagu u baahan laakiin kuwa u baahneen iyagu ka raadiyaba macnaha haddaad haysato wixii adigu u baahneed oo adigu aad baahida ku haysay baahi kale meel kale naadimo ah